maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydi Sulteelko ayaa maanta baabuurlan kuruslo cusub ku wareejiyay gudida iyo gudoomiyaha degmada cusub ee Dacarta. Baabuurkan uu maayirku caasimadda ku wareejiyay gudida degmada Dacarta ayaa hore ugu ballan qaaday degmadaasi. Maanta halkan waxaan ku wareejinaynaa anagoo ku hadlay magaca dawladda hoose hal gaari oo aan ugu talagalay degmada cusub ee Dacarta. sidii aan horeba uga soo ballan qaadnay maalintii wanqalka loo sameeyay anagoo hore u siinay degmooyinkii cusbaa ee gobolka Maroodi Jeex ka go'ay sida degmada Balimataan Kumbura tanna ay tii saddexaad tahay. waxaan ku wareejinaa halkii gaari gudoomiyihii loo magacaabay. waxaan leenahay ballanqaadkeegu waa ka dhabtaa qoladii beenta sheegi jirtay ma nihin. ahlan wasahlan waxa weeye waxaan idin rajaynaynaa shaqo fiican iyo hawl wanaagsan. degmadii sidii degdegeeda ku dhisantay waan aragnay. insha Allah taala inaa speedka ku sii wadaan sidii hore loo sheegayna wadadeeda iyo waxbaynu dib baynu uga tashan doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee degmada Dacarta iyo gudida degmadaasi iyagoo uga mahadnaqay maayirka caasimadda. aad iyo aad baad u mahadsan tahay maayir. aad iyo aad baad u mahadsan oon ka gudoonay gaarigii. ducada Axmed Sheekh Saaqaba kacada oo waxa weeyaan aad iyo aad bay u leedahay ducada badan u leedahay. marka waxaan leeyahay maayir waxa weeyaan jazaa Allah khayr madaxtinimo inta ka badan ku rajaynayna. waxa weeye horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maayirka iyo waxa weeye golaha deegaanka hawsha ay fududeeyeen. waxaan leenahay jazaa Allah khayr anoo ku hadlayo afka gudida tala samee aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. waxa weeye waanan u ducaynaynaa. beesha waxaan leeyahay codka waxaas kala kulmiye meesha joogtaanba bariya galbeed kaararkiina guntiga ku haysta. Axmed Sheekh Saaqaba waa beel balaaran waxay ka codaysaa ilaa Buuhoodle iyo ilaa Lawyacado iyo ilaa maxay ahaydee Wajaale waa beesha qura inta ka codaysa. marka waxaan isku ahay gudida tala samee waxaanu gaarsiinay waxa weeye hadda nala joogay Gabiley xafladaan ku qabanay xafiis furka qoladii waxaan nala joogtay maxay ahaydee Buuhoodle iyo Qoorlugud iyo Baleecalanle iyo qoladii Lawyacado intaba waa wada joognay. marka waxa weeye Axmed Sheekh Saaq wuxuu soo saarayaa Kulumbiye iyo musharaxa Muuse Biix Cabdi. Idris Ismaaciil Cabdi Ariel TV magaalada Hargeysa.